meeshii uu lahaa idinku salaamaya. waxay ii tahay farxad iyo sharaf caawa inaan kala soo qayb galo doodaanan uga hadlayno arrimaha iyo doodaha ka jira geedi socodka dastuur samaynta Soomaaliya. sida Roble iyo Maxamed Qaasim ba ay sheegeen, waa daraasadii labaad ee ay raas daahfurto. tii horena qayb baan ka ahaa laxaad leh, tanna cabaaraan ku lug lahaa. waqtiga muhiimadda uu noo leeyahay iyo juhdiga aan rabnay inay nala geliyaan xildhibaanada martida noo ah, su-aalaha ay qabtaan iyo rogroga iyo wasiirku aan rabno markaas inuu faaladiisii noogu soo gabagabeeyo uu xafladda barakeeyo insha allah. waxaan jeclaan lahaa inaan waqti badan aanan idinka qaadanin oo aan si kooban uga hadlo daraasadii. aan ku hormaro methodology-ga. caadiyan laba source xoogga la saaraa. secondary datan focus ka saarnay oo desk study review ahayd. waxaan kale oo aan wareysanay dadaal badan. macnaheedu ma aha 15 milyan oo qof oo Soomaaliyeed soo wareysanay, laakiin sample aan isniri uu u dhigma. focuskana waxaa inaan qualitative noqono oo sawir guud aan qaadano. saa ka warqabtaan dastuur samaynta Soomaalida tan iyo 60meeyadii juhdi badana la geliyay, wax badanna waa laga qoray oo diiwaan looguma qabo. inta ka qoran iyo juhdiga ay xukuumadihii kala duwan ee ku lug lahaa, si gaara tan iyo xukuumaddii Carta marka la fiiriyo, waxaan xoogga marka saaraynay in wixii laga qoray iyo doodihii la geliyey ama wasaaradaha kale ku lug leh heer maamul goboleed ay geliyeen, kaalintii bulshada rayidka ka sokow dadka caadiga maxay yidhaahdeen. marka si kale marka loo dhigo waa daraasad soo koobaysa, xoojinaysana wasaaradda iyo qaybaha kale ee dowladda Soomaaliya ee ku lug leh hanaanka dastuur samaynta inay caawa iyo ilaahay idamkii marka daraasadda aan daafurayna insha Allah wixii ilaa caawa ilaa berri loo gaaro aan dadka la wadaagno inay ka qaataan fakar ah dadka Soomaalida afkaarahana way ka guuxayaan. sidaas daraadeed marka daraasaddu ma ahan mid cilmiyeysan, laakiin waxaan ugu talagalnay inay qayb ka noqoto doodaha jira ee siyaasad samayn, si gaar ah hanaanka dastuur samaynta ee Soomaaliya. midda labaad, waxaan soo qaadanay 7 qodob oo muhiim ah oo samayn kara asaas intiisa la eg marka la fiiriyo intii dastuur samayn lagu mashquulsanaa. si kooban, fakarka in dastuur la qoro iyo taariikh ahaanba Soomaalida wuxuu noo soo bilowday 29 sano xeer xumada aan ku jirnay 1995 markii dugsigan culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha ee jaamacadda London LSE la yiraahdo ay reer Yurub ku maalgeliyeen oo idmadeen bal inay darsaan hanaanka ugu habboon ee Soomaalida dowladnimadeeda dib ula soo noqon karto. daraasadda LSE waxay xoogga saartay oo ay keentay dhowr hanaan oo Soomaaliya aan ficil lahaa oo ay kala xulan karto. waxaa ka mid ahaa federal, confederal, consociation, central iyo decentralized unitary state system. daraasaddaas oo Ian Lewis oo Soomaalidu aad u taqaan hadda uu dhintay, James Mayall iyo rag kale ay wadeen, waxaa la sameeyey 2 seminar oo Kenya lagu qabtay Naivasha iyo Nakuru 95 oo la keenay dad khubara oo geed fadhi ah oo Soomaaliya ka mid ahaayeen wasiir Xuseen Cali Ducaale, ambassador Cawil, Allah rahmat ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Cabdisaaq Xaaji Xuseen, Maryan Faarax Gooje iyo dad la mid ah zucama ah runtii Soomaalida ee bulshada rayidka xilligaas. markay fiireen hanaanadii kala duwan waxay la soo baxeen decentralized unitary state system in ay tahay optionka ugu habboon ee Soomaalida ay qaadan karto. leanna wuxuu ka dagaalamayay maadaama Soomaalidu ay diiday hanaan dhexe in loo baxo dambe ay diiday in lala yimaado hanaan dhex furan oo awoodii dhexda u furaya adeegyadiina heertuu la gaarsiinay. sidaas daraadeedna uu yahay kan ugu habboon in la qaato. waxaa ku xigay seminar Muqdisho lagu qabto oo isla isagii la qaatay, mid Boosaaso lagu qabto oo isla isagii la qaatay, mid Hargeysa la damcay in lagu qabto oo Hargeysa ay diideen oo ay yiraahdeen
qayb kama nihin dowlad samaynta iyo dastuur samaynta Soomaalida, sidaas daraadeed noo khuseeyo waa la diiday in Hargeysa uu ka dhaco. isla 3 sano kadibna dastuurkii ugu horeeyay ay Soomaali leedahay marka laga yimaado kii 18 May looga dhawaaqay Somaliland Hargeysa bay reer Puntland samaysteen oo ay qorteen. laakiin wax la wada leeyahay oo jamhuuriyadda u dhaxeeya kii LSC oo tala bixin un ahay aan dastuur ahayn laakiin doodii dastuur samayn ahayd waxaa noogu xigay shirkii dib u heshiisiinta Carta kaasoo la yimid axdi ku meel gaar oo qaran. laakiin hanaan federaal ku talinaya baydhabo in caasimad laga dhigto kadibna Muqdisho loo soo guuro. baydhabo la aadi waayay dastuurkii iyo baarlamaankiisii iyo xukuumaddiina meeshii ku dambeysay waa ogeynoo sanad iska dabiici ah oo ku darsamay intii shirkii Eldoret Mbagati uu socday. waxaa bedelay dastuur federaal oo ku meel gaara oo TFG koowaad xukuumad iyo baarlamaankeedii leh. maadaama marka aan hanaan loo wada dhan yahay uusan ahayn bulshada rayidkana ay yara quursanaysay wuxuu noqday in loogu yeero hay-adaha federaalka ku meel gaarka halkii xataa dowlad ahaan loo aqoonsan lahaa waxaa la dhihi jira TFIs, Transitional Federal Institutions. kaas waxaa bedelay markii baarlamaanka laba lagu dhuftay 275 xubnood oo kale dheeraada lagu daray shirkii dambe oo Djibouti 2009 oo 8 bilood oo ka mid ah xilligii xukuumadda TFG koowaad iyo 2 sano ayaga loo idmaday iyo sanad heshiiskii Kampala ay ku darsadeen ay ayaguna dastuurkii ugu horeeyay markaas aad uga shaqeeyaan. kii hore la nadiifiyay hannaanka federaalka ay federaaleynta Soomaaliya dimuqraadiyiintii oo la sii xoojiyay in cuqaal 800 kor u dhaafayso la soo xilay erga ay ansixiyaan hab aan afti dhaamin laakiin aan aad looga doodin kadibna baarlamaan kale iyo xukuumad cusub ay bedesho oo halkaas ay TFG labaad oo Sheekh Shariif madaxda ku ahaana dowladda ugu horeysay oo sovereign ah oo carro Soomaaliyeed lagu doorto oo la dhihi karo waxay bedeli kartaa intii colaadda sokeeye lagu jiray jamhuuriyaddii labaad oo tii saddexaad bay noqon kartay meeshaas ka dhalatay. 5 dowladood marka la fiiriyo oo 3 ay ahaayeen ku meel gaar 2 ay sovereign yihiin oo gob ah mid hadda noo joogta 2017 la soo doortay kadib weli dastuur la wada leeyahay ay Soomaalidu leedahay oo heer afti qaran gaaray lama hayo. dukumeentiga hadda noo yaalna dukumeenti siyaasadeed korkortan badan weli u baahan arrimo badan oo dhowrana la isku hayo ugu muhiimsan hadda marka wasaaradda iyo xildhibaanada ku lug leh guddiyada kan madaxa bannaan kan heer baarlamaan iyo bulshada rayidka qaybahooda daneeya markaad hoos u wareysatid ay dad badan fakarka ugu weyn ay ka qabaan uu yahay awood qaybsi khayraad qaybsi hannaanka federaalka iyo wixii lamid ah. sababtaasaa marka kaliftay inaan bal dadka dhex galnoo dhahno bal dadkuna maxay rabaan inay ka dhahaan oo ay rabaan inay wasaaradda u sheegaan dowladda u sheegaan balin daraasado dheeraadana qodob looga sameeyo xoogana la isla saaro. su-aasha ugu horeysa marka iyo qodob ahaanba waxaa weeyaan noo soo baxday ka koowaad ee ah horta dastuurka. in dastuurka dad badan waxay arkaan oo aan wareysanay 75% xataa ka badiyo waxay leeyihiin hannaankan dastuur samaynta waa in ay su-aal ku bilaabato oo ah dastuurku in uu yahay dib u heshiisiin qaran. waayadan dambe nabadoon jaamac iyo Suldaan Cabdisalaam waxay la yimaadeen eray bixin ah dab u heshiin. dastuurku in loo arko dastuur samayn inuusan ahayn ee loo arko inuu yahay dab u heshiin oo uu noqdo muraayad falcelis oo ay dadku iska arkaan heshiis bulsheed la wada qortay arrimaha qaran ee hor yaalla hay-adaha qaran ee aan u baahannahay inay nahagaan qaabkii aan dowladnimadeena u taabagelin lahayn waxaan u baahannahay inaan ku qabannana aniyada dhexdeeda ku raysgaraysano. qodobkaas wuxuu ahaa qodob aad muhiim u ah ay dad badan soo celceliyeen sida dad badan uu la fudud yahayna aanay ahayn dastuur samayntu inay tahay arrin intaas ka fogo badan. qodobka labaad ay dad badan soo qaateen waxay ahayd in la kala caddeeyo kaalimaha xukuumadda dhexe maamul goboleedyada Hargeysa aan caadi loo sheegin maamulka Somaliland bulshada rayidka ah iyo bulshada rayidka marka la sheego dad badan ay u qabaan hay'adaha aan naqaanay caanka ah bas in South Central Land State Actors, Somaliland Land State Actors, Puntland Land State Actors Association wax la mid ah kaliya inay saanay bulshada rayidka ay tahay
wax allaale iyo wixii ka baxsanba dowladda shacabkaas guud oo caadiga aan agaasinayna aan ahayn si kale marka loo dhigo aduntii iyo hababtii iyo kooladii isku xiri lahayd dowladda markaas jirta ay maamuladu qayb ka yihiin laana marka dowladda sheegay maamul goboleedna way ku jiraan dowladii Soomaaliyeed qaybaheedii heer gobol matalay dowladda iyo dadka kooxihii u dhaxeeyay ee dunta isku xiri kaalimadaas in la kala cadeeyo caddahay waxa dowladda ay qabanayso golaha shacabka wuxuu qabanayo iyo labadiisa aqal hoose iyo sare guddiga hoosaadadiisa guddiga madaxa bannaan maamul goboleedyada wasaaradahooda ay dastuurka u tilmaansadeen bulshada rayidka beesha caalamka oo hal cabaaraba kaalmo lixaad la bixinaysay ama farsamo ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto qodobka saddexaad oo daraasada nooga soo baxay asagana waxaa weeyaan geedi socodkii hanaanka dastuur samaynta Soomaalida sibaad moodaa inuu u ragaaday wuxuu qaatay waqti aad u badan oo naga lumay ilaa haddana weli lagama mirar keenin oo doodii u dambeysay waxay maraysay June 2020 sanadka dambe in daraaf la wadalay uu soo baxo processka waxaa keentay in mararka qaarkood uu noqdo mashruuc UNDP Soomaaliya ka tirsan oo programkii horumarineed ee qaramada midoobay project ka mid ah inuu noqdo hay'adaha caalamiga mashaariic inuu u noqdo ay khubaro soo dirsadaan Soomaalida wax baratay xataa qaarkeed inay isku soo qorto consultancy advisors aan laga lug bixin oo aan laga dhamaanin inay wasaaradda wareerto wasaaradaha kale ku lug la'aana marka dastuur la yiraahdo section nolay wixii dib u heshiisiin ku saabsan wasaarad kale soo galeys wixii maaliyad ku saabsan wasaarad kale soo galeys wixii qorsheyn ku saabsan wasaarad kale soo galeys in kaalmahoodii xataa ay yara adkaadeen processka oo nagu dheeraada la'aana tusaalooyin badan ay jira adduunyada kale ka dhacay Faransiiska dastuurka hadda ay haystaan waxa lagu sameeyay 24 saac nin generaal habeen u fariistay 24 saac gudahood dastuur ay sameeyeen baarlamaanada adduunka marka laga yimaado matalaadda iyo dhuqaynta xukuumadahooda iyo ajandaha qaran ay dejiyaan shaqada ugu muhiimsan ay sameeyaan waa sharci dejin dastuurka marba qodob beelal u bedelaan jilciyaan fududeeyaan ilaa dalkaas dastuurkiisu uu taabagalo kaayada marka juhdi badan baad moodaa in la gelinayo Morocco 2 toddobaad bay ku qaadatay dastuurka hadda ay haysteen inay nadiifiso markii uu dhacay mucaaradadii gugii carabta soo bilowday 2010 si aysan afgembi uga dhicin oo ay u kala badbaadaan dhiigooda dastuurkii wixii dadka dhibayo sheeganayeen bay ka nadiifiyeen 14 cisho Masar Xusni Mubaarak markii meesha laga qaaday bil wax la mid ay ku qaadatay anaga laakiin kaayaga doodkiisu 95 baa soo bilaabato axdigii Djibouti 91-92 calimahdii lagu doortay xataa u celi kii 89-90 u dambeeyay la wada lahaa intaan xukuumadda oo gacan ka dhicin u celi 60kii u celi 29 sano xeer xumada ilaa 99kii carta ilaa hadda uu maraya 24 saac uu dhaafay 2 wiig uu dhaafay bilna waa dhaafay qodobka afraad ee dadka aad uga doodeen waxa weeyaan in dadka Soomaalida si gaar ah xukuumadda iyo wasaaradda ku lug la'aanay jirin istiraatiijiyad maaliyadeed oo la isku halayn karo ama mid farsamo hadday ahaan lahayd in wasaaradda maaliyadda marka ay miisaaniyadda iyo qoondad sanadlaha ay dejinayso in dastuurka la xagliyo wasaaradda inaysan sanduuq gaara lahayn beesha caalamka sanduuqa ay samaysaa inuu siyaasadaysan yahay ganacsatada Soomaalida ee dadka Soomaalida ee lacagta haysta inaanay ama fahansaneen muhiimadda uu dastuur leeyahay ama aanay ku baraarugsaneen in la maal gashan karo bal heshiisiisa bulshada uu samayn karo halkaasna waxa ka soo baxay kala bixinta marka la gaaro mid walba mid ku lug leh oo ah muhiimadda ay leedahay in istiraatiijiyad cad oo maaliyadeed iyo mid farsamo inay jirto oo la isku halayn karo wasaaradda qorshe kasta ay degsato ay ka mara dhalin karto ama banaanka qodobka kale ee daraasada nooga soo baxay shanaad wuxuu ahaa la tashadii dadka meelo badan oo aan tagnay dadku wayna weydiiyeen in dastuur laga hadlay meelaha qaar sida garow oo kale dadka waxay noo sheegeen in dastuurka Puntland aad u yaqaanaan leanna idaacadda laga sheega qodob loo akhriyaa sida dadka laga dhaadhiciyo la qodobkan muxuu ka hadlayaa ma fahansantiin maxaa su'aalo ka qabtaan waa barnaamijyo documentary oo taxana ah serial toos u socda oo ay idaacadda maamulka Punt soo jeediso si joogto ah halka kii qaranka aan xog badan laga haynin
meelo badan oo ay xukuumadda tagtay wasaaradda iyo wasaaradaha ku lug leh oo maamul goboleedyada ay la tashiyo sameeyeen iyo la tashiyo soomaalida jaariyadaha lala sameeyey dad badan oo kale aan ka warqabin oo marka la yiraahdo la tashiga Nairobi loo yimid le maba maqal dastuurkii marka public consultation kii laftigiisi sidii la rabay uma dhicin oo laana 15 milyan qofna lama tashan karo hatta haddii idaacadda la saaro way adagta in la wada gaaro laakiin juhdigii loo baahnaana in public consultation guud oo la taaban karo la geliyo lama gelinin sidaas laftigeena doodii ugu horeysay markaan bilaabeynay 5 bilood ka hor daraasadan oo 3 bilood 9 cisho ay toos u socotay aan ugu dhiiranay inaan intaan fiirin lahayn daraasadii hore loo qabtay oo kale inaan iskala imaanay inaan dhahno bal wax kadib